Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Hogan 24 Media. Magacaygu waa Cabduwali Mucallim Aalto. Waxaan maanta barnaamijkan idinkugu soo gudbinayaa 5 dhismo oo masaajid iyo kaniisado loo kala bedelay. Haddaba haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, subscribe saar, gambalaalkana furo si aad u hesho barnaamijyada cusub. Hana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. Mahadsanid. Maalmahan waxaa aad loo hadalhayaa dhismaha Hagia Sophia oo mar kale masaajid laga dhigay kadib 9 sano ku dhowaad oo uu ahaa madxaf. Madax hogaamiyaal diineed iyo dad kale ayaa ka falceliyay balse madaxweynaha Turkiga ee Erdogan ayaa difaacay go'aankaas ka soo baxay maxkamad. Haddaba aynu eegno 5 dhisme ee masaajid ahaan jiray kadibna kaniisad laga dhigay ama kaniisad ahaan jiray oo hadda masaajid ah. Hagia Sophia waxa uu ku yaalaa waddanka Turkiga. Dhismaha caanka ah ee madxafka ah ee ku yaala Istanbul ee Hagia Sophia ayaa dib looga dhigay masaajid. Dhismahan waxa uu ahaa jiray macbad ay lahaayeen boqortooyo haystay diinta Orthodoxiska oo maamuli jirtay magaalada Istanbul xilligii Cusmaaniyiinta ay qabsanayeen laguna magacaabi jiray magaalada Constantinople. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa go'aankan ku dhawaaqay kadib markii maxkamadda ay meesha ka saartay inuu dhismahan yahay madxaf. Dhismahan waxa uu hadda yahay midka ay booqdaan dalxiisayaasha ugu badan ee dalka Turkiga taga. Waxaana xaruntan dhidibada loo taagay amaba la aasaasay 1500 sano ka hor. Waxaa masaajid loo bedelay kadib dagaal culus oo Cusmaaniyiinta ay ku qabsadeen magaalada Constantinople, maantana loo yaqaano Istanbul, sanadkii 1453. Dhanka kale sanadii 1934 ayaa laga dhigay xarun madxaf ah. Haddana waxay ka mid tahay goobaha dhaqan ee aqoonsan tahay UNESCO. Qaar ka mid ah muslimiinta Turkiga ayaa muddo dalbanayay in dib looga dhigo masaajid, inkastoo ay jireen dad aragtidaas diidanaa. Madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan isagoo difaacaya go'aanka ay maxkamadda gaartay ayaa wuxuu xaqiijiyay in dalkiisa xor u yahay gaaridda go'aano madax bannaan, taasna ay ka dhalatay in dhismaha dib loogu celiyo masaajid. Masjidkii Babri waxa uu ku yaalaa waddanka Hindiya. Sanadii 2019 dhismaha lagu miroosanaa ee masjidka Babri ee ku yaala Ayodhya oo ah waqooyiga Hindiya ayay maxkamadda martay in laga dhigo macbad Hindu ah. Dhismahaas ayaa ahaan jiray macbad, waxaana la sheegay in markii muslimiinta ay qabsadeen halkaas sanadkii 1528 laga dhigay masaajid. Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Hindiya ee ku taala Delhi ayaa go'aankaas gaartay. Kiiska maxkamadda oo ahaa mid si weyn loogu murunsanaa ayaa qaatay muddo 10 sano ah, waxaana la isku haystay cidda dhismaha iska leh, muslimiinta ama Hinduuga. Maxkamadda xukunka ridda ayaa waxay tiri muslimiintu waxay heli karaan dhul kale oo ay masaajid ka dhistaan. Dad badan oo Hindu ah waxay aaminsan yihiin in dhismaha uu yahay meesha uu ku dhashay mid ka mid ah dadka ay caabudaan oo lagu magacaabo Lord Ram. Hase ahaatee muslimiintu waxa ay sheegeen in muddo aad u fog ay halkaas ku cibaadeysanayeen. Waxyaalaha lagu murunsanaa way badnaayeen, balse waxaa xudun u ahaa dhismaha masaajidka Babri oo qarnigii 16aad ay qabsadeen muslimiinta. Sanadii 1992 dad Hindu ah oo careysan ayaa masaajidkaas ku duulay, wayna burburiyeen. Waxaa la sheegay in rabshadahaas ay ku dhinteen ku dhowaad 2,000 oo qofood. Maxkamaddu waxay sheegtay in warbixinno caddayn ah oo lagu sameeyay dhismaha lagu ogaaday inuusan ahayn mid muslimiinta ay dhiseen. Waxaa tijaabada lagu sameeyay haraaga dhismihii masaajidkii Babri ee la burburiyay. Go'aankii maxkamadda ayaa lagu sheegay in dhismaha dib loogu celinayo macbadka Hinduuga ee Lord Ram, iyadoo muslimiinta la siinayo dhul meel kale ku yaala si ay masaajid uga dhistaan. Balse maxkamaddaas ayaa xukuntay in burburintii masaajidka Babri oo ahaa arrin sharciga ka soo horjeeda. Golihii muslimiinta oo aan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda ayaa sidoo kale sheegay inaysan racfaan ka qaadan doonin xukunkaas ay maxkamaddu riday. Masjidka Cordoba waxa uu ku yaalaa waddanka Spain. Sanadii 2014 100,000 oo qofood ayaa saxeexay dacwad ah in dhismaha caanka ah ee kathedraalka laga dhigo kaniisad Catholic ah. Dhismahaas wuxuu asalkii ahaan jiray masjid ay dhiseen dowladdii Islaamka ee Andalus ka hor inta uusan kaniisad kathedraal ah noqonin qarnigii 15aad. Dhismahaas oo ay muslimiinta bilaabeen, masiixiyiintana ay dayactireen, weli waxaa ka muuqda astaamaha kala duwan ee labada diimood.
dhismahaas waxaa weli ka taagan muran ah nooca masiixiyiinta iska leh. mid ka mid ah dadkii saxiixay dacwadda ayaa sheegay in la isku dayo in la beddelo magaca oo meesha laga saaro masaajid iyo cathedral, balse masiixiyiinta katholiga ayaa beeniyey inay doonayaan in taariikhda dhismahaas ay beddelayaan, wayna aaminsan yihiin inay meeshaas masaajid ahaan jirtay. suuragal maaha in la tirtiro taariikhda islaamka ee dhismahan, ayuu yidhi baadari ka hadlayay dhismahaas sannaddii 2014. lama oggola in lagu tukado dhismahaas, waxaa loo oggol yahay oo keliya dadka dalxiisayaasha ah, waxaana qayb ka mid ah laga dhigay kiniisad, waxaana kuu muuqanaysa markaad aragtid muuqaalkiisa, gidaarkiisa oo ay ku xardhan yihiin qur'aanka kariimka ah. waxaana dhismahaas sannad kasta u dalxiis taga in ka badan 1.3 milyan oo qofood oo daafaha caalamka ka kala yimid. Britain, kiniisad hore oo masaajid laga dhigay. sanadkii 2007 maamulka magaalo ku taala Britain ayaa u codeeyay in kiniisad hore laga dhigo masaajid. codka golaha deegaanka ee Clitheroe oo ah mid aad isugu dhow ayaa dhaliyay in meeshaas lagu soo afjaro muran qaraara oo aad u dheera, wuxuuna suurageliyay in muslimiinta laga badan yahay ay helaan meel ay ku cibaadaystaan. dhismahaas waxa uu ahaa kiniisad Methodist ah, sidoo kale muddo 40 sano ah waxa uu ahaa warshad kadib markii la waayay dad ku cibaadaysta. arrintaas waxaa muslimiinta ku hogaaminayay nin asal ahaan ka soo jeeda waddanka Pakistan oo lagu magacaabo Shiraz Arshaad, wuxuuna sheegay in muslimiinta ay cod ku leeyihiin in dhismahaas kiniisadda la iska xiray ay ka dhigtaan xarun cibaado. xilligaas ee uu soo baxay go'aanka, waxay muslimiinta ku noolaa deegaankaas ahaayeen ilaa 300, balse hadda aad ayay u sii bateen. masaajidka Granada waxa uu ku yaalaa waddanka Spain. sanadkii 2003 muslimiinta Spain ayaa ku guuleystay inay dib u helaan masaajidka Granada ka oo muddo 500 sano ah gacantooda ka maqnaa. magaalada uu masaajidku ku yaala ayaa mar ahaan jirtay meeshii ay ugu awoodda badnaayeen muslimiintii Yurub. maalintii dib loo furay waxaa ka qayb galay muslimiin badan iyo madax ka socotay maamulka Spain. sida ay sheegeen muslimiinta ku nool magaaladaas inay dib u helaan masaajidkaas waxay ahayd soo nooleynta kaalinta islaamka iyo sharafta taariikhda muslimiinta. balse waxaa jiray dad badan oo reer Spain ah oo aad uga carooday arrintaas. qof kasta wuu diidan yahay, balse siyaasad ahaan way baqayaan inay ka hadlaan arrintan, ayuu yiri qof magaaladaas ku sugnaa oo diidanaa go'aanka masaajidka looga dhigay dhismahaas. muddo 500 sano ah ka hor ayay masiixiyiinta Spain dib u qabsadeen halkaas oo ka tirsan koonfurta waddanka Spain, waxayna soo afjartay maamulkii boqortooyadii muslimiinta ee Morsi oo muddo 800 sano ah halkaas ka talinaysay. kadib markii muslimiinta laga adkaaday, dadkii Spain qabsaday oo diidanaa cibaadada muslimiinta ayaa bilaabay inay dadkii si qasab ah diinta islaamka uga saaraan. waxaa sidoo kale la burburiyey goobihii ay ka dhisnaayeen masaajidyada oo dib looga dhigay kiniisado. masaajidkan wuxuu hadda xarun cibaado u yahay in ka badan 2,000 oo muslimiin ah oo u badan dadka Spain ee diinta islaamka qaatay ee degan halkaas, sida uu sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta ee magaalada Granada. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin in la like garayso muuqaalkan lana wadaagto asxaabtaada adigoo share garaynaya. waa inoo kulanti dambe muuqaalka kan xiga hadduu alla weyna ogolaado. mahadsanidin.